4 sano kadib qoraxda arooriyaad ee 8 Febraayo 2021 waxa ay soo baxaysaa iyadoo lagu muransan yahay waxa loogu yeerayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kaamiradeena ayaa saaka soo martay qaybo badan oo caasimadda ah si guuxa bulshada iyo jawiga magaalada aanu soo tabino. maanta oo kale 4 sano ka hor doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho ayuu ku guuleystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. muddaxileedkii madaxweynaha ayaa ku ekaa xalay saqdi dhexe iyadoo hadda madaxweynuhu ay u bilaabanayso muddaxileed aan rasmi ahayn iyadoo markaasi magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xalay jawigeeda uu ahaa mid aan deganeen oo meelaha qaar degmooyinka caasimadda laga maqlay rasaas. jawiga guud ee saaka magaalada Muqdisho ay ku waabariisatay ayaa ah mid degan wadooyinka caasimadda iyo qeybaha kala duwan ee gaadiidka dadweynaha iyo shacabka iyo goobaha ganacsiga ayaa furan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdiisaba waxaa muddaxileedkii rasmiga ahaa uu maanta u dhamaanayaa iyadoo weli aanan lagu heshinin hanaanka doorasho ee dalka. qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalkuna aynan heshiis ahayn. war-saxaafadeed xalay ay soo saareen musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya waxa ay sheegeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan ahayn amaba aysan ugu yeereenin madaxweynaha Soomaaliya maadaama muddaxileedkii rasmiga ahaa ee madaxweynuhu uu dhamaaday. hadalhaynta ugu weyn ee bulshada ayaa la xiriirta arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda. qayb bulshada ka mid ah ayaa madaxweynaha waqtiga xilhayntiisu uu dhammaaday waxay u sheegayaan in sidii loogu hanweynaa ee loo soo dhoweeyey uusan dalka iyo dadka ugu adeegin. qaarkood ayaaba ku talinaya in madaxweynaha iyadoo aan lala xisaabtamin uusan dalka ka bixin doorasho warkeedaba iska daaye. madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaheennii waa jeclayn dadkii u dabaaldegay oo soo dhoweeyaan ku jiray balse ma noqon wixii laga filayay ma uusan samayn doorasho dalka ma gaarsiin. hadda waxaan ka codsaynaa dalka inuu badbaadiyo oo sharaftiisa soo ceshado oo shacbiyadii soo ceshado ayaan ka codsanayaa. magacii waa Cali Cabdi Maxamuud inuu dalkan badbaadiyo sharaftii sharcadii shalay loo hayay karaamadii oo soo ceshado dalkana doorasho u qabto oo isagu tanasulo waliba. magacayga waa Xasan Cali Xaayow. muddadii uu dawladdeena majaraha soo haysay wuu dhamaaday 4 sano xalay 6 saac ku ekayd laakiin annaka waxaaba nagu taaganbo ilmaha naga maqan wiilkayga iyo wiilasha kalena waa isugu kaymid. waxaan doonaynaa amba dawladdu ha ku soo laabato kursigeeda amba dawlad kale ha qabato ilmaheenna ayadoona meel lagu sheegin madaxweynaha aan waddanka ugu tutun weynaay iridaas madaxtooyada yoosan ka degin ilaa ilmaheenna meel lagu sheego nolol iyo geeri ilaa ilmaheenna aan ka helnaa yoosan madaxweynuhu naga tegin. qayb kale oo bulshada ka mid ah ayaa ku talinaya in dawladda lagu taageero in dalka ay doorasho ka qabato waqti xisaabintana laga daayo. waxa way qofka bini'aadamka inuu sutura fiican annaga waxaynu nahay dumar baynu nahay ciyaalaa jira odayaal baa jira ummadda islaamka in loo tura fiican. dawladdu waa dawladdeeni dawladdu waxa weeye dawlad xun baa la yiri dawlad la'aan bay dhaantaa baa la yiri. marka waxa weeye ninkaan inta hadda nin xun ma arkin annaga hadda haddaan xamar imaaday iyo haddaanba koonfur ka imaadayba nin xun aan hadda ma arkin. haddaad Axmed Madoobe tahay haddaad Dani tahay haddaad mucaarad tihiin dhibka joojiya dadka islaamka u tura dawlad wanaagsan weeye dawladda hala dhiso. waxay ila tahay waqtigii la qaban lahaa in lagu heshiinin iyo waxa waaye maamul goboleeyadan oo aad maartay ayagana maartay lugooyo inay yihiin aaminsanahay iyo arqadii mucaaradka. dhinaca dawladda waxaan leeyahay wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin wada hadal iyo tanaasul isu tanaasulaan. magacaygu waa Shiine. haddii aan ka hadlo aragtida doorashada 8 Febraayo la rabay inay ku qabsanto muddadeeda muddaxileedka xilligii loo baahnaa ay ku qabsanto dhici weysay. aniga waxaan u arkaa howl process iyo nidaam inay wax walba ku socdaan ma fahanti. waa ognahay madaxweynayaashii ka horreeyay madaxweynahan hadda jiro Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtiyo kala duwan ay ku darsadeen. mid sanad uu ku darsaday mid 5 bilood uu ku darsaday. dhibaato uma arko aniga in doorashada ay process gasho
oo muddo 5 bilood iyo 4 bilood wax in lagu daro lagu shaqeeyo anigana waxaa qabaa waddankan in dib loo celiyo ma fiicno bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdikariin axmed shire haddii aan isku dayo inaan ra'yigayga ka dhiibto anigu inanay waxba isbedelin baan qabaa dad badan baa waxay lahaayeen 8 February wax weyn baa dhacay oo macnaha wax laga dhigay wax big deal ah aniga wax isbedel uma jeedo dabcan aniga waxay la quman sida ila tahay kulleeyda waqtiga intaanay waqti xileedka gaadhin way qurux badnayd in doorasho lagu heshiiyo in processkaas si fiican loo dhameystiro oo maanta doorasho loo dareero way fiicnayd laakiin kulleey si ay u dhacdayba waa lagu heshiin waayay macnaha in lagu heshiin waayayna waxay ka dhigan tahay dee wixii already way dhaceen maanta mar hadday wixii dhaceen tallaabada ku xigtaa waxa weeye in halkaa hore looga socdo aan waddanku dib u dhacaan u iman khilaafkan iyo problemkan waxay nagu keenayaan uun inay xaaladda Soomaaliya uga sii daraan oo ay arrintu ay noqoto faraha ka sii baxdo marka in la heshiiyo aan wada hadalnona oo aan heshiino burburkii kadib dowladnimada Soomaaliya waxa ay soo martay marxalado kala duwan haddana waxaa muuqanaya ififaalo hore u socda dareenka shacabkuna waxa uu ku talinayaa in marxaladda kala guurka looga gudbo iyada oo uusan qofna nooga dhiman Cabbaas Xuseen Muuse Mustaqbal TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier